قف كان دكانين بويري وابقال قف كدوسن دكانين بويري وابقال لأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والسلام عليكم مارتو لا أنت على واحد الله مارتكو رمضان مبارك أما رمضان كريم كل عام وأنتم بخير ورد إن شاء الله مارتي سودو أضطنا لكم سبتادي ومع سنبليس مارتي وحكا عصنا مارتي ناس وصلك وطلعكم أدى الله ما صنتين حتى الشركة ما شاء الله سو مرقا فيديو اللي waxaa ugu talagalay wax yar kale training ma la maray wax ku suganay guri family guri ma baxin fiidiyogan waxaa ugu talagalay dhamaanteena waa wax yar maartay waano mar walba maartay adoo wax sheegaysid oo wax aad ka hadlaysid laakiin ma marka waxa u baahan tahay inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma dhis xasuusiyo horta sheekh mihi wadaad nimi caalim nimi laakiin naftiina u baahan hadii wali baqaas ahaan bil waxa loo jira barakeysan waa bil ramadaan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala maartay 12 bilood uu ka doortay bishi ugu barakeysan maartay 12 bil Ilaahay subhanahu wa ta'ala bishanito uu ka doortay bishan qaas aan Ilaahay subhanahu wa ta'ala maartay bilood kale uu duwan tahay soo marka ana waxaan naqaanaa yani bishan fadliga leedahay qofka quraanka badan akhriyo fadigu leeyahay inuu dibad u yahay inta badan dhamaantiin waan aqaanaa ma sha Allah soo marka pointiga oo weyn waxa raana ka hadlo maadaama Ilaahay subhanahu wa ta'ala muslim naga dhigay aduunyada asana ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala horna inuu sheegay ani sheekh mi caalim nimi laakiin waa iska arday iska maskiin waa iska ma baad soo marka waxa loo baahan yahay qofka inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala maartay oo garto Ilaahay subhanahu wa ta'ala goorma markaad baahan tahay iyo markaad dheregsantahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad garatid Ilaahay subhanahu wa ta'ala asaga adduunka asana ka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhamaanteen ognahay Ilaahay maartay wax kala madii ma qalaqtu jinni wal insi illa liya'buduna Ilaahay subhanahu wa ta'ala jinni is wax kale ma keenin ba waa inay cibaado maartay wax ka nolol Ilaahay adduunka noo ka subhanahu wa ta'ala soo marka qofku inuu isweydiiyo adduunka waa loo keenay maxaa laga rabaa qof bin aadanka adduun sawa noo keenay cibaadana la rabaa adoo maanta adduunka wadatid oo shaqeysanayo oo xamaalanayo oo maantana waa laga rabaa saas oo kale inaa maartay Ilaahay subhanahu wa ta'ala waajib kugu yahay inaad maartay sameeysid maxaa ku kamid ah waxa la ugu meeysan markasto inta badan waa ka hadlaa oo aan soo qaataa waxa tahay waa salaada waxaana ummis inta badan ka hadlaa waxa tahay waa salaada laana maxaa yeelay salaada dad inta badan way yareystaan aniga markasto waa ku soo celiyaa salaada dadka maxaa yeelay iska daanoo Maxamed sallallahu alayhi wasallam asoo xataa markuu sakaraadka ahaa ayaa maad u dardarmo oo ka hadlay hadalkiisa uu dambe xataa hadalkiisa uu ahaa markaas wuxuu dhahay salaadu ka hadlay ma fahanti soo marka hada qaasan bisha ramadaan ma sha Allah dadka dhan way soo mooyeen salaadaha way dugtaan kaal iska arag qofka bin aadanka waa inuu isweydiiyaa inuu salaada horta intee kula facda intee adiga ku dhimaysa maad noloshaada hada salaada dukatid maliiwaanaysa hada salaada ka tagane ma qasaaraya qofku inuu isweydiiyaa laakiin maanta nin walba og yahay shaqadiisa uu yaqaanaa businesskiisa uu yaqaanaa عمايش كله أوجي مش صوح أدايو وقت وسمنا ولا صعدا يس ترينو أدا وأوجي حلو أدايو بلنو لي هاي حلو طيا ولا صعدا لكن صلاة مركم أكتر صلاة أنت وحي قوي صديق هذا سؤال قطعك وشيء لكن دتك أنت بدن ويرستان وحكم سوق هذا أنا صلاة يعني ونلوين تاي لكن سينو وين اللي يرتاي سو مركا هذا نكو شيء مركا صلاة واحد فائدة اللي هاي
bilaa salaad la-aan dhibkay leedahan ku sheega marka qofka muslimka ilaahi subxaanahu watacaala iyo nabi sal slam wuxuu leeyahay man taraka salaata faqad kafara qofka yacni nabi sal ku dhahay qofka muslimka ah hadduu salaada ka tago wuu gaaloobay inkastoo xadiiskaasiti culamo badan ay isku khilaafaan culamo qaar waxay dhahaan xadiiskaaniti maaragtay maadaama ninkan muslim uu ahaa muslimadiisa lagu fiirinaa maadaama uu maaragtay si ahaa sida muslimta loo duugaa laakiin ilaahi subxaana watacaala muxuu leeyahay marka ilaahi subxana watacaala wuxuu leeyahay maa salakakum fi saqar war naarta saqara maxaa idin keenay naarta saqara la yiraahdo maxaa idin keenay naarta saqara igma leeyihin qaaluu lam nakun min almusallina bal fiir aayadan si fiican u fiir ilaahi wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala maa salakakum fi saqara naarta saqara la yiraahdo maxaa idin keenay qur-aanka waa naqaanaa wuxuu ka hadlaa ilaahay hadalkiisa waaye wax dhacayo wax dhici doono wax dhacay wax soo socdo wixii dhacayo wax kastoo ka hadlaa ilaahay hadalkiisa waa dhammaanteen muslimna waa rumaysannahay hortaas miska ogolan naarta yes okay marka maxaa ku xigay marka ayaga maxay leeyihiin qaaluu lam nakun min almusalliina ilaahay anaga ma dukan jirin subxaana allah alxamdulilah bal fiiri dhibka ku sugan tahay ama dhibkan ku sugan qofka markuu salaada ka tago meeshu u socdo uu galayo waa caddahay lan ilaahay subxaanahu watacaala intaynu waa rumaysannahay qur-aankaniti inuu ilaahay subxana hadalkiisa uu yahay wax walba uu ka sheekeynaya ilahay markuu dhan maa salakakum fi saqara qaaluu lam nakun min almusalliina yacni iyagu waxay leeyihin arab anaga ma dukan jirin marka adil isqiimee haddaa maanta salaada ka tegtid macnihiis waxay tahay naartaad gasho waa bal culamada qaar waxayba dhahaanbe oo weliba sheekh aan ka dhegeysanayay sheekh umar su-aal la weydiiyey waxaa sheekha waa la weydiiyey su-aashaasiti waana tusayaa sheekh waxaa yidhi sheekh qofka marka gabar baa su-aal weydiisay adii su-aasha waxay weydiisay hooyadii ma soomi karaa iyo waxbaa isku ahayd kuley ma xasu laakiin waan soo dhigayaa adin aabihii muu ahaa ama hooyadii haddii soomeynin adigu waxaas buu ahaa salaadan ma dugtay marka sheekh wuxuu dhahay horta haluu baraarujiyo maadaama waalid uu yahay laakiin wuxuu dhahay qofkaana dukanin buu yidhi waaba gaal saa-iilkan kale wuxuu leeyahay waa gabar baa soo qorta waxay leedahay aabbahay in badan ma soomin mana salaadin wax cudurdaar ahna ma lahan marka sheekhow ma ii sheegi kartaa qaab aan ugu gudbin kara soonka iyo salaada maxaa yeelay kurbo ayuu igu hayaa ha la waaniyo ha loo naseexeeyo hidaayada ilaahay baa haya ruuxaan salaad tukanaynin oo aan soomaynin muslim ma aha salaada keliya ka tegitaankeeda nabigu ku tilmaamay inay gaalnimo tahay soonkiina haddana hadduu ku daray uusan soomaynin ruuxaasi muslim ma aha qofka hadduusan dukanin buu yidhi waaba gaal leanna maxaa yeele haddaaba ujeedaabe ilaahayna wuxuu ku leeyahy subxaanahu watacaala war naartan saqara maxaa idinkeen ee waxay leeyihin ilaahay waxaana geen maa salakum fi saqara wa anaa salaada ma dukan jirin marka mar walba inaan ku dheeraado wax kale maaha khiyaari waa ognahay adduunyaniti waa gaaban tahay war maanta culamo qaar waxay dhahan war wax ka samee daarti war wax walba samee laakiin weligaa salaada ha iloobin war weligaa salaada xooga saar war weligaa salaada tuko salaada ayadaa barake ayadaa jannada lagu galaa ayadaa ilaahay subxana wataala xiriirkeeda kuu ah war ayadaa wax kas kuu furtaa wax walbo war fiiri waxaa lagu dhahay adoo sakaraad sakaradaad tahay waa xanuunsan tahay fartaasaad haddaad ka nuxjanaysa aad ka dukanaysa lagu dhahay bal adig qiimaha uu leeyahay inaa meel weyn tahay marka walaalayaal waxaan wax kale ma ahan mar walba isku day adoo maanta social media isticmaalaysid inaa maaragtay marmarkoo xataa maaragtay wax kheyr soo gelisid oo anagan aan faa'iidaysano laanna maxaa yeelay markuu bato mala yacni markuu bato iimaankiina wuu damayaa naftikii iska miskiina iska ahay laakiin mar walba isku dayaa inaa iimaankii kordhiyo iimaankii kor u qaado ma fahanti soo marka khiyaari wax kale ma waa
walaaliyaatiin waa idin jeclahay wax aan idin jeclahay laana wuxuu leeyahay laa yuumin axadukum xataa yuxibu liaqiihi maa yuxibu linafsi waxaan nafsadeeda la jeclahay ayaan kula jeclaaday marka nafsadeeda waxaan la jeclahay waxay tahay inaan salaada isla dukuno diyaar ma nahay yes diyaaraan nahay please maartay bisha ramadaan kaliyaysan ku okaanin salaadaada soonkaada ma fahantay please waa raali waa tuugtin waa baryo adoo mahadsan salaada xooga saar waa ku barya walaalkiyaa tahay leanna maxaa yeelay nabi maxamed sal alay salam asxaabta iyo ayaga maarata ummadda way u dhilin jireen mafahantay yani way murgi jireen yani qofkaaniiti meesha u socdo naarta maarata uu ka fikri jiray nin baa maalin yahuudi baa layidhi nabi sal alay salam wuu waayey cunug yar buu ahaa markaasuu weynan fulaan hawil aabay markaas asxaabta waxay ku dhaheen gurigiisa nabi sal ninkii wuu booqday waa cunugii waa sakaraad markaas aabihiisna geesuu fadhiyaa waa yahuudi waa cunugii markaas wuxuu ku yidhi qul laa ilaha illa allah nabi sal slam walaala la dheh mar cunug aabihiisuu fiirinaa mar nabiguu fiirinaa aabihiis wuxuu ku dhahay qul abaa qaasim ajiib buu yidhi sidii buu cunugii meesha ku ashhaatay oo ilaahi subxaana watacaala maaragtay markaasuu nabi wuxuu alxamdulillahi alladii anqada min annaar ilaahay baa maad iskale alladii cunugaanid oo naarta ka xurey bal fiiri nabi saas waa sal alay salam fikradiisa marka bal maanta ka waran anagu muslim nahay waxaa leenahay salaadin ma tukanen subxaan allah kheyri waa idin baryaa maarata please salaada ku dadan insha allah waa codsi waa idin jeclahay walaaliyaa tihiin madaxaagay saaran tihiin markas waa dhiirigelisiin horusaxa ay tireen waa idinka mahad celinayaa dad fiicanaa tihiin maasha allah ilaah subxana wataala maanta hawada xifdiyo yani maaragtay sheekh miyi wax miyi laakiin waxaan aqaan intaan aan kasaa yar aan aqaano waxaa jecel inaan idin soo bandhigo ma fahamtay marna insha allah ha ka xaajisina inaan salaad aan xooga a saarno wallahi bila taala dad badanaa jira maanta ilahi nimcadiisi laakiin oo salaad aysan tukanin waa dhib markaas haddaa video haddaa aragtid please maaragtay shirgare walaalka halkal u shirgare waa ajir adin maaragtay ilaah subxana wataala ajira kaa siiyo maxaa yeelay aniga ajira wada helaynaa soo markaas insha allah waa maasantiin dhammaantiin waxaa idin lehay maaragtay ramadaan kariim ramadaan baarik insha allah salaada aanoo balanahay inaan ku dadana insha allah guys waa idin jeclahay khayr idin rajeyna insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu